golaha badbaado ee SSC ayaa maanta lagaga dhawaaqay magaalada Buuhoodle waxaana ugu horeyntii ka warbixiyay afayeenka golaha badbaado ee SSC Cabdiqaadir Cabdilaahi Maxamed Cabdiqaadir Xildhibaan shirar badan oo isdaba jooga kadib waxa uu muuqatay in gobolada Sool Sanaag iyo Cayn aanay ku sii jiri karin marxaladda ay ku jiraan loona baahan yahay in la badbaadiyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn mustaqbalkooda iyo aayahooda annagu aan nahay dad midnimada Soomaaliya u taagan gaarna dawladda nidaamka federaalka ee Soomaaliya ee dastuurka Soomaaliya ku yaala oo sheegaya qolo waliba iyo gobollo waliba iyo deegaan waliba inuu iskiisu maamulo inaanu annagu aaminsan lahay dastuurka dawladda federaalka iyo midnimada Soomaaliya maamulka Somaliland waxaan ugu baaqaynaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay si buuxda deegaanada ay kaga sugan yihiin ay uga baxaan dawladda federaalka iyo dhammaan dawladaha beesha caalamka waxay ka codsanayaan in dadka maamulkoodii iyo ayakatashigooda iyo inay iyagu ismaamulaan xaq u leeyihiin dastuurka federaalkana ay ku taallo iyaguna ay ismaamulayaan oo ay maamulkooda iyo ismaamulidooda ay diyaar u yihiin say isu maamuli lahayd waxaan kale oo u sheegaynaa dawladda federaalka Muqdisho waxaa loo samaynayaa oo bariyaha baad maqlayseen maqaam gooniye Soomaaliyada labada meelood ee qura ee ka harsanaa il maamul loo sameeyo ama maamulkoodu waa samaysan yahay oo sidii loo hirgelin lahaa kaliya u baahan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo maqaamka Muqdisho dawladda federaalka waxaan leenahay labadaas ma kala hadaan dadkani xuquuqdoodii bay doonayaan waxaan kaloo idin sheegaynaa 22 meelood oo ka mid ah daafaha caalamka iyo gudaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in lagu qaban doono xaflado golaha badbaadada SSC uu qaban doono kaasoo loogu gagal xaadayo dadkani inay aayahooda ka tashadaan inaan beelaha SSC wax ka matala iyo wax quseeya midna aan lagu qaban baanu halkan ka cadeynana waxaanu leenahay dawladda federaalka waxay aad marteen ee ummadda ugu dhaarateen inaad u cadaalad sameeynasaan ee aad kitaabka gacanta ku saarteen waad garanaysaan waa ku ragaadin karnaa waxaan leenahay cadaalad sameeya ilaahay wuu idin kula xisaabtamaya xaq baanu leenahay inaanu maamul goboleed samayno waanu leenahay waxa Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu rabnaa dawladda federaalka inay noo aqoonsato oo aanu ay aqoonsato sida iminka maamulka xamar loogu sameeyay iyo maqaamka kaasaan xaq u leenahay waxaanu dawladda federaalka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u sheegaynaa in Sool iyo Sanaag awalba maamulka waa lahayd in iminka la aqoonsado Ibrahim Abdiqaadir Jabaan Sum News TV Buuhoodle